madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa salaadii ciidda qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka kula tukaday mid ka mid ah xarumaha ciidanka xoogga halkaas uu madaxweynuhu kulamo kula yeeshay saraakiisha ciidanka qalabka sida. inta badan madaxweynuhu waxa uu maalmaha ciidda ku qaataa xeryaha iyo xarumaha ciidamada dalka taasoo ka dhigan in madaxweynuhu uu maalmaha adag iyo maalmaha farxadaba la joogo ciidanka qalabka sida gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo ay dawladdu dadaal ugu jirto dib u habayn iyo dib u qalabayn si amniga dalkooda ay ugu filnaadaan. ciidamadan oo u badan dhalinyaro isla markaana halkan loogu xoolo qalay ayaa wajiyada waxaa laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin waqtiga uu la qaadanayay madaxweynaha dalka. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu la ciido ciidamadan isagoo dardaaran koobanna u jeediyey. maanta waad ogtihiin waa maalin ciida waa maalin weyn ciid mubaarak mar kale ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciideeda kale inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cibaado san farxad ayay runtii noo tahay inaan halkan idinkula ciidno maanta oo aan idinla qaybsanno farxadda ciidda barakaysan xaqiiqatan waxa aad samayseen oo ah inaad naftiina u hibaysaan dalkiina waxa weeye waa waajibaadka qofka wadaniga ah laga rabo ama muwaadinka laga rabo saas waa ogtiin soo maaha dal walba waxaa lagu qiimeeyaa inta ciidan uu leeyahay inta xoog uu leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa inta divisions ciidanka divisions uu kala leeyahay inta qaybood uu leeyahay yaa lagu qiimeeyaa dal walba waxaa lagu sharfaa oo lagu soo dhaweeyaa lagu karaameeyaa inta wiilal idinkoo kale ah oo diyaar u ah inay u dhintaan saas waa ogtiin soo maaha dalku hadduusan ciidan lahayn madaxweynihiisu sharaf ma laha dalkana sharaf ma laha laakiin dalka hadduu leeyahay xoog idinkoo kale ah oo diyaara ah inay naftooda u huraan oo ay u dhintaan dalkaasi waa karaamaysan yahay magac buu adduunku leeyahay qiimo gaaruu leeyahay idinkaa la rabaa marka inaad soo celisaan sharafkaas iyo qiimaha Soomaaliya ee hore u lahayd inaad idinka soo celisaan halkan waxaa iga muuqda dhalinyaro firfircoon oo xoog leh oo halkan u yimid ma aha shaqo inay naftooda u hibeeyaan dalkooda difaacaan dalkooda iyo dadkoodaba soo saas ma sanadkii tagay ayaa sidan oo kale waxa uu madaxweynuhu maalmihiisa ciidda ku qaatay xarumaha ciidamada gaar ahaana kuwa xoogga oo madaxweynuhu waqtigiisa ugu badan u geliyay sidii jamhuuriyadda Soomaaliya ay dib ugu hanan lahayd cududda ciidan ku filan. Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya.